alla kala ayaanu eegaynaayo caawa ciyaaro badan ayaa jiri doono oo koobka kaaye waaweyne hadda Premier League caawa lama ciyaarayo laakiin League Cup ayaa la ciyaari doonaayo Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Brentford waxay ciyaarayaan 9 habeenimo iyo 45 daqiiqo ay ciyaarayaan Liverpool iyo Chelsea waa kulanka ugu adag ee qatarta badan waxay ciyaarayaan 9 habeenimo iyo 45 daqiiqo ay ciyaarayaan oo 10 habeenimo yacni oo ruudun bay ciyaaraha kan soo galayaan min Arsenal iyo Brentford Liverpool iyo Chelsea waa kuwa ka ciyaaro caawa soo galay ya Tottenham iyo Watford waxay soo galayaan 10 habeenimo ciyaarta tan ee caawa marka waa ciyaarta ugu adag Chelsea Liverpool iyo isbuuca dabar way tartami doonaan wala Chelsea iska jir Liverpool ayaantan waa la kari laayahay Chelsea Liverpool hatta ayaantan laba gool hatta shabaqeeda ma la gaarsiin karayo horta inaad ka bas ka dhaafay laba gool hatta laga ma dhali karin in la yiraahdo Alisson Barka oo laga yaabay marka Liverpool wala Chelsea caawa maqaar baa ka jira bariyaan Chelsea waxay leedahay aranaga karaacayna marka dhigi jira oo yaa jooji kara Liverpool markaan lahaa waxay dhaayeen Chelsea anaga joojinayna arbaco iid baa kooyaase waatan sabtina iid baa kooyaase waa imaan doonta sabtidu soo socoto yaani labada ciyaarba caawa markay ciyaaraan hadda labadan kooxood sabtina way ciyaari doonaan marka wala ciyaar baa jirta caawa iska jira marka Chelsea caawa Liverpool iyo Chelsea waxaan u digayaa Chelsea maxaa Liverpool ayaantan warkeedu waa cad yahay inkastoo aan ogahay Chelsea laacibiin badan ay joogaan oo ay qatar badan yihiin haddana ishaarteeda waxay leedahay Liverpool Chelsea baa loo baqaayo Liverpool hadda waa qatar ayaantan lagana yaabay Chelsea in caawa ay ku kala baxaan laakiin cabsidu waxay u badan tahay Chelsea maxaa ayaantan Liverpool oo laga badinayo maba la arkaba oo miyay caawa Chelsea na tusi kartaa Liverpool oo guul dareysanaysa inkastoo ciyaarta ugu si adag ay tahay sabtidu Liverpool ayaa badisay kaliya 2 jeer 14 ciyaarood ee hore ula ciyaartay kooxda Chelsea tartamada oo dhan 7 ciyaarood bareejo bay galeen 5 ciyaaroodna Liverpool waa la garaacay inkastoo labada markay ciyaaraan Liverpool yaa laga badi og yahay hadda si caawa Liverpool ay xoogan tahay 14 jeer labadan kooxood hore u soo ciyaareen yaa tartamada oo dhan ugu dambeeyay 14 kii ugu dambeeyay 5 Chelsea badisay 7 bareejo la galay 2 Liverpool baa adkaatay kan waa kulankii 57 oo Liverpool iyo Chelsea ay ku kulmayaan walibana ay ciyaarayaan ciyaar ceenkan oo kala ah waa kulankoodii 57 ayay kuwa kale u ciyaarayaan waa taariikhda kulanka aad loogu ciyaaris og yahay Ingiriiska wali waxa lagu leeyahay kan waa markii 8aad ee taariikhda Liverpool iyo Chelsea isaga hor imaanayaan ciyaaraha Liga Cup waa markii 8aad oo labada koox way iswajahayaan waana markii ugu horeysay oo ay wareeg saddexaad ku kulmayaan tan iyo November sanadii 2000 markaas oo Reeds ay 2 gool iyo gool ku garaaceen kooxda tan ee Chelsea Anfield baa lagu ciyaarayo gool ka yimaaday ciyaartooyga Danny Murphy iyo Robbie Fowler marka bariga ugu dambeysay oo ay nimankan wareegga saddexaad Liga ku kulmaan 2 kun bay Reeds baana adkaatay waana markii 8aad caawa ay ku kala Liga ku kulmayaan marka waan arki doonaa caawa Chelsea ayaana soo bixisay oo u gudbaysay wareegga xiga Chelsea ayaa u gudbaysay wareegga xiga 7 kamida 7 jeer u dambeeyay wareegga saddexaad way dhaafisay Chelsea 7 jeer u dambeeyay Liga Cup Chelsea ay ciyaartay wareegga saddexaad way gudbaysay tan iyo 2010 markaas oo Newcastle 4-3 guuldaray ka soo gaartay laakiin 7 jeer u dambeeyay Chelsea oo habeenkan oo kala ciyaarto yaani wareegan saddexaad ciyaarto bal waa gudbaysayo bal waan arki doonaa caawa ciyaarta taayo marka Chelsea iyo waxa ugu weyn caawa ciyaarahan u daawan doona Liverpool Arsenal iyo Brentford iyana waxa weeyaan dhamaan ciyaaraha ka Liga Cup waxay soo wada gali doonaan caawa 9 habeenimo iyo 5 daqiiqo soo gali doonaan Talyaanigu caawa waxa ciyaari doona Roma iyo Frosinone 10 habeenimo bay soo gali doonaan Udine iyo Lazio 10 habeenimo bay soo gali doonaan Juventus iyo Bologna waxay soo gali doonaan caawa iyana 10 habeenimo bay soo gali doonaan toban habeen baynu ciyaarta soo gali doonta Ronaldo hadda 3 gool uu sii marayaayo isbuucan waa dhaliyay isbuuc koori 2 gool buu dhaliyay inkastoo odagu cariisayo markii labaad abaalmarinta laga qaaday haddana caawa ciyaari doona Cristiano Ronaldo oo Bologna bay wajahayaan Napoli Parma xitaa caawa 10 habeenimo La Liga isagu xitaa caawa waa la ciyaaraya Barcelona ciyaarteeda la soo hormariyay ta kale Real Madrid caawa dhafar xamuud raaga yaani waxa weeyaan waqtigeed soo galaysa waa lagu dhafri doonaa Barcelona waxay soo galaysaa ciyaarteeda 9 habeenimo oo buura ah 9 habeenimo justay soo galeysaayo Barcelona laga nisbay la ciyaaraysaayo guriga laga nisbaa lagu ciyaaraya caawa Malcon xitaa qayb ayuu ka yahay ragga Barcelona ciyaartan u ciyaari doono baryaha wiilka waa dhaawacna Malcon Soomaaliyeed waa lagu dhagayo bareeja lagu celiyay iyaga Real Madrid waa isku dhibco Real Madridna caawa kulan shubba loo dhibayo Sevilla bay la ciyaarayaan waxay ciyaartu soo gali doontaa caawa 11 habeenimo bay soo galeysaa marka Barcelona ayaad marka hore daawanaysaa waxay ku soo galeysaa
sagaalka habeenimo ku soo galaysaa Real Madrid Sevilla waxay ku soo galaysaa 12 habeenimo marka ciyaarta Madrid ciyaar lagu gaaraa jira tan Chelsea ku gaari kartaa ta Barca ku gaari karaysaa ciyaar badan baa caaw jiro wad Ronaldo karaysaa Ronaldo fiirsanay ku soo gali kartaa qaybta xigta marka waa kaayo caaw ciyaaraha ka ee jira ee waaweyn isugu jira horyaalada iyo koob yaryarowga yani koobka laga dhigo horyaalada yani Ingiriiska kale caaw waa liiga kaabaynaya Talyaanigu waa Serie A Spain waa la liigaynaya والله حالي مرض واك دعday مانشستر waa laga yaabay masaan badratan adduunyada ku dhaqataan Manchester ay masaan badratan adduunyada ku dhaqdaan wallahi faca ka harhabar waa fucud waa baashaalayaan fucud shan bay dhalinayaan saddex bay dhalinayaan waa baday u bad maqlaysaa ayuuma waa ka lagu waa kufaan bareejay soo galeen isbuucan xalna ciyaarihii liigaabka laga reebay ilma yar oo uu wato Frank Lampard oo ah nin yar hadda tababar noqday ayaa garaacay Jose Mourinho oo ah wiilkiisa xal garaacay Frank Lampard waliba koox yar oo aad u yar oo Derby County ayaa xalay Manchester ciyaaraha ka saartay ka war san shaqa maan kuwa waa inkaari ka war Manchester ayada labadood bari madaxa qaada haddana biri kale waa dhumaysaa sida hadda ka hor baa canug yare dhumay canuga markuu dhumay oo uu yaani gurigiisii ka lumay ayaa berigeena la raadinay war cunug baa naga maqa war ma aragtan yaaqay odag waa oy habartu cunug baa iga maqan wax la dhalay waa macna wax la dhalay waa cunug baa iga maqan baa lagu wada hayaa ugu dambe cunugii waa la helay marka cunugii la helay habartu waa farxday habba isiisi wiilkeeyo waa kuwa aryaa waxsan laga soo maraa ka war ya habba isiisi waa farxday markaas cunug wuxuu qoray waa qasri war ma had ku qoslaysaa wad mana daalisay beriyan uma sir hadana beri ahadan dhuma macna hadda maxaad u farxaysaa hadana beri dhumayay marka Manchester waa taa labadood beri bal xoftaynayaan wax kale Manchester wax kala weeyaan Pogba oo wariya wax Sanchez Lukaku wax laga qabo beri kale waa dhumaya san shaqa maan adduunyada san lagu ma dhaqan karayo Manchester ay darbiga ku reebaysa xilli ay darbi reebaysa Manchester ma daawanayna yahu xal wixii meesha ka dhacay halkee lagu ma taqaana ma aha garoonkii darbi Old Trafford baa lagu reebay Manchester goolka hore ciyaartuse waxa bilaabay ciyaartooyga Joan Mata daqiiqadii saddexaad Mata ayaa goolkii hore Old Trafford ku furay kadib markii goolka uu ciyaartu ka dhashay oo yaani Manchester ay ku hogaamisay United 9 daqiiqo ciyaartu markay mareysay ayaa waxa ka dhashay gool haya Romero Bolusion inama caadi ahayn oo waxba laga qaban karin isagoo taagan baa korkiisa la mariyay Romero ilka ciridku iska taagan iska qosol heesiir oo leeyahay ciridku isku taagaya agtiisa la marsiyo goolka 1-1 ilmo majiran ilmo hadaad sidoo Maxamed Qadar ku dhahay deelin everwa ilmo lama cishaba ilmo ku bilow gool hal gool ka dhali oo ku soo fiirneen ugu celi heebay ku leen ugu celi seexana ku leen ugu celi dacskooda isku dhufsanaa iska baxayaan ilmo saasa laga yeelaa ilmo wala boobsiya laakiin ilmo yara hal gool ka dhalaysid ku haynaysaa kadibna Romero ayaa roose qaatay markii kubad laga dhali gaaray uu banaanka gacanta kaga celiyay gool hayu waxa loo ogoliyay diintiisa inuu kubadda gacanta ku celiyo laakiin markay banaanku noqoto gacanta kuma celi karayo roose la siiyay Romero. Here's Wilson looking to run in behind now that is handling outside the penalty area. Romero straight red card for the Argentine. roose toos ayuu naqatay gool hayaha reer Argentina waxaanay Manchester keensadeen gool hayahooda kale bedel la ku keeneen kadibna waxa dhacday daqiiqadii 86 Manchester in halbowlah la gooyo markii ciyaartooyga Jack Marriott uu ka dhaliyay goolkii labaad markay ku tuureen gool hayuu soo tufay ayaa loogu celiyay mar kale laba gool derby Frank Lampard iyo cidiisi waa dabaaldegeen. Chance for Mount, another great save by Grant. Derby County Manchester snaps it. ilma waliga ha isku dayn ilma saas waa ilma xalay Manchester saas u waaleeno ilma yaro derby saas u waalay xalay Manchester ilmu ka shaqeyso ku wal gool ku dal waqti ka hore ka dhali kadibna Fallen baa daqiiqadii iyadoo 2 daqiiqo ka dhimantay ciyaarta madax ku bareejiyay waa dheeriyay see looga celina nin dheer oo qala weeyaan ma jaranjara garoonku la keysinaya lagu celinaya ma lagu celin karo laba Mourinho wuxuu u dabaaldegay sida inuu ma taqaana gool ka dhaliyo koox isagu la heero way balli wuxuu ka gool ka dhalinaya derbi xilliga oo ku farxaya nin derbi intuu gool xilliga ka dhaliyo inta ku dabaaldegaya nin derbi halaas wareer la maraya shaqa marabiyo
laba gool waqti dheeri ayaa ciyaarta lagu darayo Manchester iyo Derby ugu dambeyn waxay isla gaareen darba jasa ama gool kulaad way tuurteen way dhaliyeen kuwana waa dhaliyeen Manchester way dhalisay Derby way dhalisay way dhaliyeen oo dhaliyaanba kadib waxa la gaaray rigooradii ugu dambeysay Philip Jones ayaa tuuray safe ayuu sameeyay gool hayay Derby waana u soo baxday ciyaaraha liiga kaabka Manchesterna waa la reebay Mourinho waxa garaacay wiilkiisii Lampard ee berigu tababaro uu ahaayo yaa Allah xalay waa la ciibayo saas Manchester ka xaala aradii ka dhacday wallahi yaanu saakay lidin cimaamadi karinba and his is saved. Derby County are through. Phil Jones missed the decisive penalty. Scott Carson save, and Manchester United and Jose Mourinho, mighty Manchester United, are knocked out of the Carabao Cup on their own. معنوه مانشستر واحد معناه مانشستر ساس كأركيسنا كحاله مانشستر واسكو صور ماته مانشستر يونايتد مانشستر تدي ما هنو مانشستر وحويان هاللود عي مريسا يواكايه لمن دربي عيارو كريبيان مركا يونايتد وحال نقول له ياهي متكستو كميدا شنتي جار قدام بي عياروه دا اي دربة جسا قاران اما ريغوري اي قاران مانشستر ولا قبدني شنتي جار قدام بي ريغوري عيارين سدح لي كاب لو قبدي ريغوريال هل اف كاب هل كوميرشيل مركا مانشستر ريغور كما فيعنا شنتي جار قدام بي ريغوريال با لغو ريباي ولبا هاري ويلسون wuxuu noqday ciyaartoyga ugu horeeyay Manchester direct free kick ka dhalay yani free kick toos ka dhalay Bolton oo Old Trafford ka dhalay ciyaar League Cup tan iyo 2009kii barigaana ciyaartoygii la oran jiray Gilles Pernis ba ka dhaliyay goolka Romero wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay Manchester oo Old Trafford Rosa toos ku qaadata tartamada oo dhan tan iyo Eric Bailly oo May 2017 Rosa toos ku qaatay ciyaarta Celta Vigo ee Europa League maanta ayaan dhaliyay xalay goolkiisa ugu horeeyay Manchester tan iyo goolkii labadii gool ugu dambeeyay ka dhaliyay King Power Stadium tan iyo waxa gool ugu dambeysay maanta December 2017 oo waxa uu gool la'aan haysay maanta 276 maalmood Frank Lampard ayaana garaacay Jose Mourinho xalay kulankii ugu horeeyay caalami ee isagoo tababar uu ka hor imaanayo macalinkiisii hore Mo haddana wuu garaacayo kamal daari wana calaabuhu markaan ku leeyahay waa kaayo Mourinho inta laga hor imaada la garaacayo bari macallin wiilkan uu ahaa United ayaana laga dhaliyay hadda 7 gool tartamada oo dhan oo Old Trafford ku ciyaareen 4 ciyaarood oo tartamada ku ciyaareen Old Trafford Manchester waxa laga dhaliyay 7 gool baa laga dhaliyay 4 kulan wixii koray kulmadan 13 ciyaarood ka horna 4 gool baa laga dhaliyay yani waxa dareemaysaa yaantan Manchester waa isdeedeysay Romero waxay aad markii ugu horeysay xirfadiisa oo Rosa la siiyay haydo marka Manchester ciyaarteeda soo aadan xitaa waxay aadaysaa West Ham Premier League bay aadayaano City-na xalay way adkaadeen oo ay ku adkaadeen 3 gool bay ku adkaadeen oo City waxay garaaceen wiilasha Oxford niman shaqara waa nimankaas Fourcas la aaday xalay garoonka Oxford baa lagu ciyaaray niman garoonkooda lagu reebaa niman xaqay aadayaan niman shaqara waa nimankan Jesus ayaana goolka hore ciyaarta u dhaliyay kooxda Manchester City and then headed in by Gabriel Jesus markuu goolka dhaliyay City ayaa gool labaad ciyaartu la timid iyadoo daqiiqadii 78 ciyaarta uu dhaliyay gool super yani wax kala oo qatar badan Masariyad Mahrez ayaantan waa kacsan yahayo Mahrez waxa la leeyahay Manchester City ciyaari ugu horeeyay ee 7 ciyaarood oo hay tartamada dhan uu ciyaaray wax gool uma dhalin haddana labadii ciyaarood ee la soo dhaafay tartamada dhan uu ciyaaray 3 gool buu dhaliyay isbuucan 2 soo dhaliyay haddana hal wali buu dhaliyay Mahrez Riyad waa soo noqdayo Phil Foden ayaa wiil yar oo mucjiso oo khatar oo ingiriis ah waa wiil yar oo qaada karin intuu yar yahay intuu gaabin leeyahay soo ciyaarina ma heli kartid kubadii hore uu Jesus dhalinay asaga saa u laaday Diaz baa soo wixii ka dukanaa dhaliyay tan asaa u dhixbixiyay Mahrez inuu lugta bidcid ku qaatay si qurxoon ay lugta midgad ku dhaliyay wonderfully swift and incisive counter attack Mahrez markuu goolka dhalayna waxa yimaaday daqiiqadii 9aad ee ciyaarta wiilka da'da yar ee Philip Foden goolkiisa yimaadayo Foden ayaana goolka dhaliyo wuxuu ugu dhignaa Foden isagoo oo jira 18 sano iyo 120 maalmood ayuu wiilka dhaliyay waa wiilkii ugu horeeyay ee dhashay tan iyo waqtigii ugu dambeeyay ee 2000 buu ahaa ee gool dhaliyaaba una dhaliyaa Manchester City marka Philip Foden xal isagoo jira 18 sano ayuuna goolkii ugu horeeyay Manchester City u dhaliyo waa goolkiisa ugu horeeyay ninka kan wiilka u gaaraya goolka marka City ayagu waa la yaqaanayo marnada guul dara kama soo gaarto kooxaha hoose markay la ciyaarayaan
ay la ciyaarayaanoo tan iyo 1900 ma dhicin Man City in guuldaray ka soo gaarto kooxaha yar ee hooso ka yimaada ma sida Manchester United la gaadayo kuwan waa diidayaan waxa ka bidaarliya wata Pep Foden and he does now have his first Manchester City goal. marka ciyaarihi xalay waa ka City waa wax kaleysay maharay saddex buusi maraya Unitedna waa laga badiyay oo rigoorayaal baa lagu garaacay caawana ciyaaraha ka baajira Liverpool iyo Chelsea ayaana tan ugu adag oo aan weegino wana Liga Cup-ka 9 iyo 5 daqiiqo ay soo gali doontaa 10 habeenimo oo rubi dhiban iyagu iyo min Arsenal iyo Bradford halka caawa xitaa Ronaldo uu la ciyaarayo Proya 10 habeenimo Juventus iyo Bayern ciyaari doono waliba Messi iyo Barca inuu caawa ciyaari doona sagaalka habeenimo oo Leganes iyo Barcelona ciyaarayo halka Real iyo Sevilla ciyaari doonaan caawa 12 habeenimo oo ciyaari la ciyaaray kuwa dhacaya caawa oo aan weeginay